runtii waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee ku arkay Ceerigaabo waxa kamid ah roodhida yar ee caynka u samaysan waxay caagadan bolshadka sida nagu soo jaran maxay ahayd iyo beeska oraya ma garanaysaa labadan lixdan badoon wuxuu ahaa maxay tii warsan galib waa nina dhulmaantu ahaa nina habar jecel ahaa labana waxay habar yuus saas lixdo kala ahaa arbaalka suuqa ka badaniyo الحمد لله رب العالمين سفر دير كدب وسوقاتي ساعات aad u tiro badan dhul badanna aanu soo maray masaafadiisuna ka badnayd 700 kilomitir oo aanu kaga soo kicinay magaalada Hargeysa ee caasimada oo ahayd dalka Soomaaliland ayaa baan hadda ku soo gaadhnay Ceerigaabo iyo gobolkii Awyaasha ee Sanaag aniga ficil ahaan waa markii ugu horeysay aan imaado magaalada Ceerigaabo runtii durtaba jawi degan baan soo galay iyo dhaxan aan gobolada kale la qabin maadaama aan wali jiilaalkii la gaadhin habeenimada xalay ahayd gorsheegtu markii ay marisay 12 habeenimo iyo barkii ayaa baanu soo galay magaalada Ceerigaabo markii aanu cagaha soo gelinay Ceerigaabo waxaanu dareenay jawi ka gadisan jawigii aanu kaga nimid magaalada Hargeysa iyo sidoo kale deegaanada aadka u tirada badnaa ee aanu soo dhex soconnay waxaan reer Ceerigaabo odayaasha reer Ceerigaabo kamid ah magaaladan waa magaaladii laga aasaasay gabi ahaanba oo wax allaale wixii laga soo jeeday haday Sheekh Saxaaq tahay haday tahay ilaa iyo deemiye hebel laba leedahay halkan waa halkii lagu dhaqnaa waa halkan laga aasaasay waa meesha dadku dabadeedna kor iska u socday oo galbeed afka saaray asaasku marka halkan aataari waa yaaliin waa magaaladii laga soo aasaasmay waa magaaladii xudunta u ahayd Soomaaliland waa tan magacan Ceerigaabo wax ku baxmay garanaysa Ceerigaabo waxa la igu yiraahdo ma jirin marka waxa la yiri ceelka waxa yaalay digsi yar area oo la yiraahdo area marka dad aniga sidaas odayaal badan la sheegay waxa digsiga area ee ceelka la gacabo ba Ceerigaabo loogu bixiyay magaalada Ceerigaabo waa caasimadda gobolka Sanaag gobolka Sanaagna waa gobolka ugu baaxadda weyn ee dhammaan deegaanka Soomaaliland bari ilaa galbeed magaalada Ceerigaabo jawigeedu waa jawi aad u qabow inagoo kuwa tilmaami kareynaba inay tahay magaalada ugu qabow ee Soomaaliya degto gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo caasimadda u tahay waxaa lagu naanaysaa gobolka Awyaasha iyadoo naanaysta tan loogu bixiyay laba arrimood labadaba waa arrinka koowaad Soomaali dadka ugu daada weyn waxay ku dhaqan yihiin gobolka kan ah adigoo magaalada Ceerigaabo tusaale ahaan markii wadooyinkeeda maraysa ku arkaya dadaad u daawa weyn Allah subhanahu wa ta'ala cimriga u dheereeyay oo daadoodu sare u dhaaftay in badan oo kamid ah 100 sano iyo jarjar sababta labaad ee loogu bixiyay gobolka Sanaag gobolka Awyaasha waxay noqon karaysaa iyadoo ay ku aasan yihiin odayaashii ka soo tafiirayay qabaa'isha Soomaaliyeed idilkooda hadda waxaan ku sugannahay magaalada Ceerigaabo ku quracanayna waxa ila jooga saaxiibka qayraan oo igu soo dhaway magaalada saaxiibada dad maadsan tahay runtii waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee ku arkay Ceerigaabo waxa kamid ah roodhida yar ee caynka u samaysan anigu Hargeysa ka yimid waxa weeyaan laba roodhiyood ba laga isticmaalaa roodhi mafada marka la dhaado waa tu dhuuban iyo tu yar balbalaaran xagta geelana laakiin baasha staa u dhuuban هذا تدخل يوم بربران دايت كتير كتير يا بلو رجل انتظر يا رئيس ترى عرقة وما دايت كتير ترى ده نفقة كتير على هذا عرقة هي تن هذا ركتة يا رئيس طلع عليه نفقة بكرة كتير مايو وان قرته ونفقة صغار كذا يبير كذا ساق ولا مكرر هي بهاكم يربر مركب واحد رودو جراتها سكوا عنها رودو جراتها سكوا عنها ونحرس فيها مركب وحويا هل يوم كاركيو يا رودو ده اللي يقطع كل مركب بعد سما
نوع قلال كم قرب من يجوا way suqaar buu baahan لأن كده تيورا حكم الدوران laakiin sinaa suqaar magaaladan Cerigaba arrimaha ay caanka ku tahay ee kaga socon tahay magaalooyinka kale waxa kamid ah afmaakhiriga waxa la yiraahdo bal afmaakhirigu wuxuu yahay in weydiino bulshada ku dhaqan Cerigaba magacayga waxa Cali Jamal Maxamed Cali Jamal waxa weeyaan reer Cerigaba intaas aad ku dhalato Soomaaliya Cerigaba inta ku dhalato intaas aan joogay 6 sano joogay Cerigaba waa gartay saaxiib Cerigaba waxay caan ku tahay maakhiriga bal maakhirigu muxuu yahay cidaan garin bal u sheeg مخروج حوي وهذا اللي صوص اللي يوصل بيبان وهذا يشير حاست حوق وحنا وقبل حق عمري نقصي بدن أنا أقول لك هو الحوق على وقتنا أنت إذا بدن وقتنا بل هذا الخلاص الصوص ودي جيو هو بالوقوع عنصن وحوي أن قفك وحن صعود حتى أنا قرينا هنا هذا يشير غير عرقة بس لي قناة معك كم ده waxa kamid ah maqaxiya markaas ka fadhido nin ba talaakada soo qaadaysayo hoostiga soo wani talaakada maxay biafurka si u kulushaaybe haye dabeetana ninkii ba faabay talaakada shaahad ku shaahaysan buu haystaa wixii waxaan ban hoostiga talaakada tabaandadan iyo dadkan qurux qof qaabkiisu ba tabaanda ka dhigaysa dad intido waxba tiga metelaysa qofkii sax marka waa meteladaasuna waxa weeyaan qofkii inaan la socono oo meel kale ka fikirayo waa hoostiga waa intaas oo la hoostiga iyo la si macaanayay sax marka ma khriba la dhahaa ma khriba la dhahaa waa gartay لكن ما ربيدك كجبضن. عمر بنا جبضن. حاجة كده ولي بوحي سقطة صدرك. صدرك. هذا الكوجا ديلي جاي عادي جابوا كوبي شرابة. وكوبي شرابة استعمال كويا. وراح واحد عاقد بولشر كايس ده نوصل شرنا محي هديو. بس قاري يا مقرسة. يو هذا جوه وطن مرة يحمل يموت. مركز سنة هذا وحكاس قرني وكبها سيسمعنا بعشرين سنة محي ناس عولين. وقف كاس مرة عشان يحبك كده يموت. هو سكنوا وقت تيجي يقدر هذا ما خرج عن الله كل ماي. هذا با wuxuu yiri habeen xilli habeen waxaan joognay tuulo ka baxsan Cerigaba hada gobolka dadweynaha wuxuu yiri aroortii wuxuu yiri hadaan indhahaygu xaraq ahayn waxba la xambaarsanaa xalay marka waan yaabay niyo wadagan muxuu ka sheekeynaya maxaa la xambaarsanaan karaa de xambaaradii adigu markii ay u siista fatray aanu tagay waxay noqotay hadaan indhahaygu xaraq ahayn waxba la xambaarsanaa xalay macna qof baa la sitay xalay macna waa qiso isagu arkay way turjumay wana ma akhriday ma garan karnayno ya axmedow aadar waxaan ku weydiiyay erigan bal ma akhri in dhaliirta weydiinayay bal macna ahaan laftiisu muxuu ka turjumaya tanaga hadalkan ma akhri la yiraahdo xiyaabaha sax bunagay halkan kuma badnay waxaan hadalkaas u ahaa iyadoo qofka waxaanu ahayn lagu sheegayo laakiin adigu aad fahmayn هذا أيوة شيء قلنا ويه هذا كاس حلبه كي مثلا مايد أوكي صح مركا واحد ويه وحي واحد يقارض أركن له شيء جيو ويانو يجوا سلاف كرنيا هذا كده واحد ويه هذا جو أركيا لو كليب سنيو ووحي واحد لو شيء 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 كان لو صوريه لا بعين كويا لكن هذا فهم يجوا حبتنا نجيب هذا كاس sidoo kale waxyaabaha magaalada Cerigaba la gaar ka tahay waxa kamid ah baaquliga shahriga iyana sidoo kale waxa jira baaquliga baaquliga laftiisa cid aan garanayn bal muxuu baaquliga waniyo baaquligaasi waa midibad shaah lagu soo shubay waa gartay ka bacdina horta caano yar baa lagu daraa de qaarna jeebka iska xaysiin waxaan adigu hantira iska dhigo baaquliga cabdigan xeeraanka ay ku shil cabay adigu ku dil cadaanta oo marka waxa leedahay baaquliga iyo koobka shaaha labada baaquliga qaalisan ba baaquliga qaalisan waa 2500 koobka shaahina waa 2500 marka sixir bararka keenay laakiin se tan istismaa ku jirta baaquliga xogaa yaro jeebkaaga bad xaysiinaysa marka waxaan oran karnaa waa shaah VIP baa laga dhigaya macna laga soo dhigaya waxa weeyaan Cerigaba waxay la filaysaa waxaan filay cidlamo wadaagto Cerigaba cidlamo wadaagto baaquliga waliba maqaaxida xeelaha uu eegaysto baaquliga iyadoo baaquliga laga helaa halkan aan hadda fadhino صح وسطلتك مقالة وهالكاس بقول لك مالك لقى معبو وحوي حيسين بين كوي تشيب كانوا ير معانا يايو يقول لي ما أنت تشيب كسب حيسين يا دكتور بقرص أكو على حسب مركا هذا ما أنت بقول عبتو حويان واحد حاج ما أنت تشيب كيس حويان من عصمها ما أنت ولا قرر حيستو هالكاس لا قرر حيستو بل يدا بقول لك لفتيسه waxaweyaan Cerigaba goorma kugu horeysay hadaad u soo joogteen waalkeeda hadii kala la sheekooyinka goormaad ku maqashay inay baaquligan hadii jeerta koob mid dadku wax ku cabaanay baaquligan wax dhoobu nagu waxa anigu aan maqlay aan ka horeey 2 sano kaliya taba ama 2 sano meelahaas kama horeyn sax waxaana lagu sheegaa shaaha madibadaha lagu shubay ka badan ka bakeeri oo caano badan iyo sunko badan xoogaa lagu hagaajinay sax oo markaa ka qaalisan kii kale mar walba ka qaalisan sax hadeer 2500
ومرة سحر بركة لكن مركي هرنا أول كل هربا مركي أنا كل شيء بقول بوها يا رب صح إما كانت ده وعويسين طلعوا صح مركي يسوي حوي الشيء صعب باقولي مركي أنا وأكون مغلي صح إن أنا يعني عمري يسوي دارين بقول لبص أنا وكليات أنا كلين تان مغلي أول ما خاطر مخاطر ما بعض وبعض صح مركي كاسر نقنا بلوش سيدا دلرت شيء إنه حويان وشاك بريم ورا كرينا وشاه كبري والله أوران كرادو ده ما دام كي كان كقال شيء واحد بدر مسافر عنه كده عامل ده كبر شكرا باقولك waxa weeyaan waa shahan oo lagu cabeeyo jabcadan runtii waxa caan ku ah Ceeri Gaabo si dadka magaaladu ay sheegeen had iyo jeer waxa weeyaan shahan cimrigiisu ma dheera yani dhawaan baa magaalada waxa weeyaan uu ku soo dariyay 2-3 sano ka hor shaha wuxuu kaga duwan yahay bakeriga lagu cabeeyo ko uu ka qaalisan yahay laba uu ka caana badan yahay xagga sonkorta waxa weeyaan waa kaala iska arag waxaan oran karaynaa reer waxa laga hay bisad waa wax kibirtay waa shaah kibray weeyaan shaah طيران دادو waxa weeyaan xirtii magaalada tahay anigu horta baaquladeeda waa isaga qani haye ma bakeriga basta mise baaqulaga saacada ayo kala ku saxaadiri jiray saacadaha marka 10 maalin maanta waxaan filayaa kulli shaayna adila dhadhamis aad iyo bal ka waran shaah marka xabtay jabacada kale waxaan qaawad wada baalka warniyo waxa weeyaan gorba horta kuma jiro intaasaan kaga soo reebay dani waxa ila tahayba waa fikrad ganacsi oo ka banaan Hargeysa baaquliga Hargeysa la geeyo إيش مثل كم يديني واحد كبر رمان دام إن ساعة حلو هرب مقالة عرقة والسوق وصباح صح حالنا أتوقع شيء السفر كقول كله سفر السوق عشان ما دام هذا حق بورتي داراتكم هادية كل واحد كبر تشوف مقالة بحياة ساعة كم كل صورة على حنات كلام نيو هرتا عرقة بلور شيبان كواركي صح عملة ديدا كوا قبوية صح لما واحد كوارك عاد عدد واحد مدائم كده Hargeysa waqtigan oo kale waxaad sooranaysaa waa labadii barkii صح waana 10 subaxnimo Ceeri Gaabo عيدنا هلكي كل هوريسو صح يا بان غران لا مقاحيدنا خيل لا دهد اسكو ارك خيل يا ادود ما ست gobolkan sanaag marka laga yimaado baaxadiisa aadka weyn oo ku fadhiyo waxaan ku tibaaxi karaynaa in uu haysto goobaha dalxiis ee ugu badan ee gobol leeyahay iyadoo ay goobaha ka mid yihiin Midisho Gubna Biyacas iyo sidoo kale buurta Daalo hadda waxaan ku suganahay magaalada Ceeri Gaabo maanta oo dhan waxaan duubaynay wax weeyaan muuqaal aynu kaga sameeynay vlog aad cajiib ah magaalada tan ah idinka oo soo bartay waxyaabo badan oo magaaladani kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed hadda waxaan ku suganahay halkii xalay toole aan magaalada ka soo galay asxaabtan isku baranay magaalada waxa kamid ah wariye ficil bukuud dhiidi waxa la yaabantay magacaas ay la tahay ficil bukuud dhiidi waxa weeyaan maaha Afrikaan kale meel kale noogu yimaan waa inka Soomaaliyeed ee dheeha weeyaan ficil saxo magaalada Ceeri Gaabo kugu soo dhaweynayna aad bad saxo maasatay waxaan ku leenahay ya aad bad saxo maasatay fadhiyo barasho wacan Ceeri Gaabo waa taas Ceeri Gaabo waxa weeyaan ficil iyo waxa weeyaan in kala oo lamid oo gobob waa ku nool ugu horeeyo saaxiibkay Qayran oo hadda kamarada haya ficil oo saaxiib maanta markaan isbaranayni waxa weeyaan mala asxaabtani daawanaysan waa ila mid waxaan u qaadan waayay in magaca ficil bukuud dhiidi magaca qof la yiraahdo oo waliba magacaas official yahay aanay saan oo ahayn saaxiib ku soo dhaw horta magacu waa magac rasmiya sax ficil bukuud dhiidi waa bukuud waa wahay dhiidina waa wahay hadda marka ficilna waa magacayga ha maxay ahayd taayay de haddii micne ahaan aad u baahan tahayna saddexduba waa isku micne ficil oo waxa weeyaan waa wax qabash waa karti weey sax burkuudna ma maqashay hebel iyo hebel baa islaayo hebel baa halkan bur kala kuday ama wax la booday isna waa isla midkii oo kale dhiidina waxa weeye hebel iyo hebel waxaasu ka dhiidiyay saddexdii waa isku micne ma garad marka ninkan waxa weeye waa ficil caqli weeye ma garad marka gobolka Sanaag ku soo dhawow baa ku leenahay gobolka Sanaag waxa uu kaga duwan yahay gobolada kale oo inta Soomaaliland horta waa gobolka ugu baaxadda weyn gobolka Soomaaliland ka weyn kuma jiro waa gobolka gabilay baa waxa sheegata gobolka cagaaran halka kan weeye baan leenahay hadda ma garatay kaas waa ka labaad oo gobolada Soomaaliland kaga duwan yahay waa gobolka ugu qabow
حقيقة وين تاس حقيقة هو مجرد waxa soo weheliya wajaala soo wehelisa iyo sheekh hada magar laakiin gobolka ugu qabo halka saddexdaaba oo dheer waxa kale uu dheer yahay gobolada Soomaaliland gobolka kan waa gobolka afmakhriga lagaga hadlo wax badan wax weyn afmakhriga asxaabtu way soo aragtay maanta runtii wadama adigana waa soo dhaweynaa bulshadana waxaan leenahay bulshoy عاوي حسوس سناق برشا وعن شكرا برنامجكنا قيمه بدنا انه كديارنay gobolka Sanaag siibaan magaalada Ceerigaabo ee caasimada ah intaas aynu kusoo gabagabeynaa hadii aad daawad halkan soo gaadha kusoo bir kanaalkeena adigoo subscribe karnaa furasi kusoo gaadha muuqaal waliba markii soo galno muuqaalkan xiga waxaan ku leeyahay doonaa nabaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh